أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دمان شعبك الصوماليين مeel kastoo daafaha dunida ka joogtaan soo dhawaada. waa walaalkii maxamed cali difaac qaran. awl baad socoto. maanta waxaan rabnaa marka wixii aan anagu marqaatiga ka ahayn, xogogaalka ka ahayn, inaan ummadda Soomaaliyeed la wadaagno heshiiska Axmed Madoobe ama Madoobe horgalka ciidamada Kenyaanka ah ee doonaya dhaxalka Soomaaliyeed inuu Kenya gacanta u geliyo. Axmed Madoobe iyo kooxaha qowleysatada ee asaga ku hoos nool waxay soo socotaba waxaan ka bilaabaynaa magaalada Kismaayo. waxay yiraahdeen waxaan sameynaynaa maamul iyo doorasho sameynaynaa, madaxweyne la dooranaya. dowladda federaalka Soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha iyo odayaashii dhaqanka ee soo jireenka ahaa ee ugaasada dhaqanka ahaa ee saxda ahaa oo dhan diyaarad baa lagu qaaday UN ta qaaday oo waxa la geeyay meesha la yiraahdo Kismaayo. Axmed waxa la yiri guddiga doorashada wuxuu yiri ereyga la isku khilaaf waxay ahayd 3 keena hal baan kala baxaya, waa ka naqaysanaya. waxaan maqli jiray 3 marduuf oo qaaday keen hal baan ka naqaysanaya. haraagi Tigreega gudoomiyaha difaaca qaran baa tiri haraagi Tigreega 3 keena hal baan ka naqaysanaya, taasoo ay shacbiga deegaanka degan diideen. Axmed sidoo ku yimid iyo sida lagu keenay iyo cidda keentay qof walbana way garanaysaa. Axmed wuxuu ku yimid rabitaan Tigreeg iyo Kenya. Axmed wuxuu ku yimid damaaci Kenya ay dalka Soomaaliya badeena ay ku qaadanaysay waa waxaan dhanba virus ka dhex abuurmay wey. waa virus lagu dhex curiyay damaaciga Kenya dalkan Soomaaliya ay ku qaadanayso. ma ahan hogaamiye shacbiga deegaanka degan ee saddexda gobol ka dhex yimid. ma ahan rabitaan shacbi iyo deegaan in lagu doortay. maamulka xitaa ahayn maamul deegaanka dadka lahaa ay doorteen ayagu ay dhisteen. ma ahana waa maamul ay dowladda Kenya iyo Tigreeg dhisteen awoodana kala qaybsadeen. billahi calaykum wicitaanka joojiye telefoonka waa dimanaya ilaa aan barnaamijka dhamaysto idin fasaxo qof isa wici kara ma jiro. waa dimanaya bas raala hada afwan raala hada. Axmed marka qof walba waa ka dharagsan yahay dhuxlaysta iyo qaabka uu ku yimid iyo sida meeshaan ay ku imaaday. meeshaan waxaa lagu yimid wax la yiraahdo damaaci iyo niman wax magarad ah oo Soomaali ah oo lacag yar oo dufan ah siistay dhulkii Soomaaliyeed. Kenya weligeed ciidamada Afrika ma taqaano wadalaalada dunida Afrikaanka kama qayb gelin. Kenya weligeed kama qayb gelin. ciidan ku filan ma haysato. Kenya dagaal dowlad ay la gashay ma jirto.
horta Axmed iyo maamulkaan dadku kula Jubbaland baan naleeyahdayo reer hebel baan nahayo annagaan haysano waxaasoo dhan waxay ku yimaadeen waa damaaciga badan ay Umar iyo ninkii Sheekh Shariif Cabdiraxmaan oo soo saxiixay horta waxa dhanba waxa dhanba ee lagu sheegayo meel dadka reer Jubbaland isugu yimaadeen oo yiraahdo maamul baan dhisanayna iyo rabitaan ka yimid iyo wax maamulada kale reer koonfur galbeed iyo yaashada soo yimid lama qasbin Hirshabeelle lama qasbin galmudug lama qasbin tani joojoob iyo qori iyo dagaal iyo dil bay ahayd dhiig baana meesha ka dhacay waxbayaan hadal ku daalin marka horta qaabku uu maamulkiisu yahay inaan inta u sheegaan rabay Madoobe waxa uu haysto u leeyahay maamul baan haystaa iyo dawlad baan haystaa horta waa inta labo heshiiska marka may heshiiska intaana galin Axmed magaalada Kismaayo yimid odayaashii waa iskugu yimid ugaaskii Mareexaan ee guud ugaaskii Dareed ee guud ugaaskii Gaaljacel ee guud ugaaskii Cawramale guud kiir digil iyo mirif digil guud kii mirif beelaha degan macallin weyne iyo gasaaro gude iyo yanta beelaha raxweynta oo dhan ugaasidoodii malaaqidoodii way yimaadeen sheeqaal waa timid jirar weyn waa timid ajuuraan waa yimid baajuun waa timid beelaha Soomaaliyeed oo dhan way yimaadeen waxaan rabnaa baa leeyahay annaga maadaama odayaashii dhaqanka nahay dad kale aan wakiil ka nahay in annagu dadka aan xildhibaanka u xurayno annagu aan soo xuranaa maya wuxuu saddex nin reerkeena ka keenay mid baan ka naqaysanayaa waa la diiday wuxuu sameeyay hool buu dad iskugu keenay wiil adeer yahay oo Xamse la yiraahdo buu u yeeray buu yiri guddiga ka mid tahay iyo midilka dheer la yiraahdo meelaha Norway ka tago waraarsan hadda adoonta hoosteeda ku jiro oo dadkii taadiyada iyo dhibaatooyinka gobolka ka geystay kamid ahaa dabadeed wixii adu maamul wax doorasho ku sheego samaystay waatii nimankii tolka ku ugu sukeeyay ehelkii ahaa ee asaga fikirkan cariiriga ah la watay ay ka hor yimaadeen muddo la soo fadhiyay dabadeedna dawladii waxaan abuurtay waa ka haysato waxa la geeyay meesha diyaado Nairobi baa lagu hanjabay oo hantida in ka taalo Kenya wax kale kuma hanjabto ilmahaaga iskool Nairobi kama dhiganayaan Seeraaro ilmahaaga iskool xidiga ka dhigan maayaan dukaankaaga furnaan maayo guri kaaga dhisnaan maayo hadaa rabitaanka dawladda Kenya ka hortimaado daaqada lagu soo galay gudhiis nabasugud madow ha ku soo galay gacmuhu taag u tanaasul Madoobe dhowr yar oo dhowr boqol oo kun qaado 200 oo 300 oo kun baa la siiyay waxa ka dhacay ilmo adeer agreement Kismaayo lagu soo noqday Kenya dadaalkeedii way sii waday ninkan Kenya gabadha ka qaba ee la yiraahdo James Swan ayay dirsatay xamar bay u dirsatay waa la sii waday dawladda Soomaaliya ra'iisul wasaarihi xafiiskiisa marka Axmed Madoobe si toos ah ula shaqeynay ee Xasan Cali Khayre xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa si toos ula shaqeynay madaxweynaha si hoosa loo geliyay oo lagu yiri Axmed Madoobe la heshii oo waxaad siisaa gudoomiye ama hogaamiyaha maamulka Kismaayo ilaa dadka isma haystaan hal gobol gacanta kuma jiro gudoomiyaha maamulka Kismaayo afmadow ee kumeel gaarka ah dib u heshiisiin hal la sameeyo horta heshiiska noocaas oo ahaa meel madaxweyne Jubbaland oo gudoomiye gobol magacaabaya lagu dishiyo maanan arag meel okay كما صوّعي كرو لايف بان كجرا بالله عليك لايف بان كجرا مال هورتا أحمد مدوي هشيسكي دولة أي لقى الشيء وحي أهيد قدوميها كميل قاركا مقالة كسماعية أفمدو كميل قاركا أدب هشيسين إلا السماعية هورتا أهيد ما ننتي لي أحمد مدوي الله قصدوا غيرني مال وربان قال لي مال كستان قال لي meel walbaan marnay aad baan u raadinay wax kasta galnay waan oranay waxaan xaqiiqsanay in Madoobe iyo dawladda oo waliba xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaan gadaal ka riixay in lagu heshiiyay hogaamiye ku meel gaar ah oo magaalada Kismaayo gobolka Gada iyo maamulkeedana ay iskood isku xukumaan balmada Soomaali si fiican u dhageysta warka dabadeedna halka sano oo isku kaadashubkii ama isdoorashadii Axmed Madoobe halka sano lagu soo dhiso maamul dib u heshiisiin waxaad ka garan kartaa Axmed Madoobe inuu san maamul ahayn maalintii isku kaadishubay oo balaayo u yeertay oo unsi shitay
oo muusig raacday oo wax walba lagu sameeyay ilaa iyo hadda maamulkiisa asaa madaxweyne ka ah wax uu sheegto iyo sticker ku haysta asaa madaxweyne ka ah golo wasiirada ma laha wasiirada ku xigeen ma lahan xildhibaano ma lahan waxba ma lahan muxuu dhisan lahayaa wax maamula ma ahana waa kumeel gaar waa transition magaalada Kismaayo away dadkaana way soo imaanayaan Ahmed marka yaqiintii ayuusan ogeyn dadkan maanta xilliyadii ay dadkan la dhibaateeyay ee la afduubayay oo la waxaynayay oo maxaa kala dool u noo fadhiyay oo dadka ku leeynayay oo dadka la afduubayay maanta ma aha Kenya maalintii dawladii xumeed ee ducafada ahayd ee masaakiinta ahayd ay haysatay dalka ma ahan ee bila aqoon la'aanta ahayd in dalkan strategically iyo historically iyo geographically u aqoon waayo dalkan ilhaana ka dhacday Shariif baan madaxweyne noo noqday ilhaana ka dhacday Xasan baan madaxweyne noo noqday ilhaana yahay waxa soo dhan cadawgu waa ka faa'iideystay okay Ahmed marka aniga marka iyo waxa saxda hadaan idin sheego Ahmed Madoobe maalintii ilaa iyo hadda iska daba wareeg buu ku jiray maanta soo istaago hadduu maamul goboleed yahay waa ka qorqor madaxweynaha maamulka iyo wasiirada dhistay waa ka galmudug dhistay muu wax dhisto heshiiskaba kuma jirto in wax magacaabo ilaa dadku isu yimaadaan la heshiiyo dib u heshiisiin loo sameeyo doorasho xor iyo xalaal ah magaalada deegaanka Jubbaland ay ka dhacdaa inta ka horeyso wax wada hadal ah iyo wax doorasho ah iyo wax maamul ah oo meesha ka jira ma jiraan wax doorasho ah oo meesha ka jira ma jiraan wax maamul ah kama jiraan Ahmed waa hogaamiyaha jabhadda Ras Kamboni kooxda garabka fadhigeedu uu yahay Kenyaanku ilaaliyaan ee magaalada Kismaayo waxaan rabaa ilaahay baan idin ku dhaariyay fiiri dadka waa bariyay sacab lagu dadi karo waa bariyay sacab lagu dadi karo bal ila daawada shacbiga magaalada Muqdisho ay kaga hadleen dowladda federaalka Soomaaliya ay kaga soo saarto ciidamada xoogga dalka ee ku sugan gobolka Gedo ayaa waxa wax lagu xumaado ku tilmaamay qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada kuwaasi oo ku tilmaamay musharaxiintaasi inay yihiin qaran dumis isla markaana ay yihiin kuwa jecel kala qaybinta shacabka Soomaaliyeed taasina aysan soo dhawayn waqti xaadirkan dibadbaxyada ayaa waxaa sidoo kale ka soo qaybgalay maamulka degmada iyo dhammaan ururada bulshada rayidka waa kuwan qaar ka mid ah dibadbaxyadii oo ka hadlaya dareenkooda waxaa laga soo horjeedo oo diidan yahay nidaamka dawliga ee Soomaaliya ka dhismay ninka maanta rabo inuu 90 kooda ku celiyo maxaan ku tilmaami karnaa maxaan qofkaas marka waxaa ka hadlay duqo magaalada Muqdisho ka hadlay aayado quraan buu dalisay soo saa ku jirta waa nas way ariga laba aayad baan ka hadlayaayo ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa ku sheegay suurta baqara ya ilaahay subhanahu wa ta'ala bil aadam wuxuu qarsaa saddex ma usqarsaa saddex uu qarsaa ilaahay wuxuu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim alif lam mim dalika alkitaba la rayba fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إلهي هو سوى مؤمنين إلهي سبحانه وتعالى قرآن كشهد هو سوى مؤمنين وحكوا إن الذين كفروا سواهم عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا هو قالوا سواهم عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أما حق أشهد أما أشهد مرهم أنا لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أطفالهم غشاوة ولهم عذاب أليم لبلاس إلهي سبحانه وتعالى كورهم منه كشهد هو عندما قالوا كشهد لبلاس وحكوي ماذا الناس بكوي ماذا إلهي مركب عايدة وحسين قلت حظ الشهد ومن الناس إلهي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بالمؤمنين هو سوكوه وكو إسلام كي قالوا دحيوه وكو كوس ومنافقين توه حقيقة هو وأن أنت سعاش اللي كوه إنه سوء عليه ربو أو ديك إسلام كي إلا داعيه ربو نك عاصي كوس فاسنتها حقيقة هو وأن نك عاصوه نك قالوا هو ذي إسلام كان غير قلنا إسلام ما إلهي بقرآن كنا شيء قرآن إلهي قرآن كنا شيء ومن الناس من يقول آمنا بالله أفكر كرمنا يا إلهي بقرميسنا إليهم إسلام كانوا يلقينا يا إلهي نوز عيد السيود حيله يقادعون الله والذين آمنوا ما يقطعون يقادعون الله وحيدكها يا إلهي بيدكها بين الشقيا يا والذين آمنوا كو إسلام كا
ومؤمنين تاعي شير marka masaa'isha ayaga soo qaatay qofka maanta umuru qiyaanta fikirkiisa ku shaqeynaya oo gaal ah oo la og yahay ilaahayna subhanahu wa ta'ala quraanka ku sheegay ya ayyuhalladhina aamanu hal adu lakum ala wa ilahi ya ayyuhalladhina la tattaqidu aduwwakum awliya tulquna ilayhi bil wadad wa qad kafaru ma jaa'a haq ninka adiga og inuu gaal yahay oo diinta islaamka ka tagay ninka aad wali ka dhigatay aad hoosta ka dhigatay maanta aad garab ka dhigatay oo ku adiga aad leedahay taladaada asaga u hay maxaa ninkaas weeye Soomaali odayaasha hadlay ماي محاتري لمنك معارض كدولة دي بربريان ودجال كذا فلايان معايا إن شاء الله ودي لهي لن تايرون ملا لن منزلش ليش قالي كتر فيه لن منزلوا بشليش قالي لن جوتيس كوس ما قال إيش ليش الفلايان جوتيس كوس نالا لن منزلش ليش تشكيل يدل فيه ما يقول لك منزلوا تشكيل يدل فيه هذا المكان لن منزلش تشكيل يدل فيه لكن ما تايرون ملا دولة لكسو الدوينة لكسو قال هذه الناس لقتيا كترونتيا نجني ما إلى رأي هكذا لتقوي من جد وياو أفرت دولة الولاد كانوا وحول الشيء بلها ماي جا أمام حوين دجن قبل كجدو وحولي دولة أقوسية عالمك لك كسوة النهاي عالمك لك أقوسية هالنهاي إلهي فضلك ساكيتو أهورو وحو صادر صدي وحبنا كما قادي كران مذوب مركا وحو كريونا يا شري وحي ماشا كدعي ججوبكي قبرة دادكي بوبكي كريشبويدي جواسيستي أوردكي وحيبو إلا هدا كريونا مذوب ماي إيا محاتري أمد جبلان كما ربطو كما آمن سنو شخصنا ضد لو ما جوجوبي شخصي حلقف أمدنا لو ما جوجوبي أمدنا رابطان كذا الله وش غيريا ورشر قريب بالله عليكم شر قريب شر ده أمدنا رابطان كذا الله وش غيريا ما عليك هستا سعون ميسو إلهي بان كل عرتي حلي بي قرنو هاين حلي بي داد كاني هيستين قد بي مال مهودي حلي بعد أمدنا مسخوشة بيها اللقو قينيا ندو مالكو قينيا كونك الدولار أتسيني سدد كاللقو دولي السنة يي قبل الله دقل حلي بعد نقل هذا عبد بالليغا قال جعل حقاقا أتسي سدد كاللقو دولي نيو قال جعل سلادين تيسات كل ينس حلي بعد فرتاك لبدا كون أتسي سو أمدنا اللقو بابئيني حلي بعد إنه عند كوري وحقرت كي أضياشا إيسو دي لايد كوا يقهري ماذا ما أنت ما أحمدو دنبيادا عدل كان كاقاش هيك باينو قينينا كهاري ماينو وينو كلو حساب تمينا odayaasha dhaqanka aad dishay ee gobolkan Jubbaland aad ku dishay waa 27 oday 27 oday oo odayaasha dhaqanka ahaa ee soo jireenka ahaa waxa kamid ah 4 gadaad ku dishay dhaqana qaasim oo beesha hawraarsama ahaa oo maxamuud Saleebaan oo Raac Abdallah aad dilay gurigiisa aad ku dishay inta koray soo dirtay nabadoon إدريس أو الدراها أذاد لي نبضون هذا الدرا أو رئيسيادها أذاد لي نبضون بانجي أذا عند كره يدرى مده حابت كقول فرناهي أفر متاهي شرد الله نداوع وكاجبهاي كسماية واحد قد الشيء كسماية واحد قد الشيء نبضون عبد بولة أو محمد بولة ولا شو قال جعله الدقندي ذا واد الشيء وعادش السلطان كي جودة قال جعل السلطان رشيد ضرّي وعادش السلطان كي جرير بيمال وعادش السلطان كي وردي وعادش كي باجون وعادش كي جرير وين وعادش قرع ستدي وعادش أقويانكي انت هاس أو رمبينو حكوه هينا كيسا مركا إناد ما أنت الريوتو أو أنت سو استقطت هذا الله يلحي يعني قاعد واحد كل شيء يقدم يهجي ور أديك يقشن كاجا والدجان كان لقى مرة ور أديك يقشن كاجا أنه حلبانو أرجني أو أي دولة نوقع صبتي هدار ناي شعبي قبل الله كسر جيدو
xal baan u aragnay halka sano oo hogaamiyaha kumeel gaarka ee magaalada Kismaayo Axmed oo lagu ogriyo shakhsiyan halka sano markuu dhamaadana dadku doorashay u dareerayaan shakhsigay rabaan ay dooranayaan dastuurkan xaaraanta ee adoonta malmalooqdo waan bedelaynaa boobka degmooyinka aad boobtay ee beelaha Soomaalidu degan yahay aad kulaasta boobka ka qaatay waa laga celinaya waa la xisaabtamaya gogol baa dhacayso dib u heshiisiin baa dhacayso reer walba oo deegaanka degan xaqiisu qaadanaya dulmi iyo dulsaar iyo ciiri ma soconayo waan ognahay maamulkaaga wuxuu ku dhisay xaaraan wuxuu ku dhisay xiqdi wuxuu ku dhisay dil ma ogolaanayna mana soconayso waxaan rabaa shacbiga dadka gobolada ka soo jeeda ee beelaha aan idin sheegay walaalayaal qurba joogtooda la hadlayaa qaran joogtoodana waa la hadlayaa waxaan leeyahay jawaabteeda ugu dambayso walaalayaal waad soo wadankiinii waa la qabsaday dowlad baa qabsatay iyo camiilo malcuumiin ah u shaqaynaya dowladdaasa dalkiinii qabsaday in dhibaato in ku filan way in ku dhacday in dhibaato in ku filan way in ku dhacday waa laydin kufsaday waa laydin dilay waa laydin laayay waa laydin xasuuqay wax walba oo dad bini aadan lagu samayn lahaa baa lagu sameeyay waxaan idin sheegayaa aan ku wargelinayaa kuwa gudaha jooga iyo kuwa dalka dibadda joogaba u diyaar garooba difaacu nafsi dalkiina iyo cirdigiina iyo sharafkiina aad difaacatan waxaani aad ku jirteen ma ahan waxaad ku jirteen caqli ma ahan waxaad ku jirteen wax dad nasabiyad lah ku noolaadaan ma ahan ku qusqaata hadalkii Xuseen Cabdi Xalale ku qusqaata hadalkii Madoobe waxaan rabaa marka ugu dambeyn intaan qadka furin Madoobe inaan fariisiyo Madoobe waxaad timid magaalo aad saas sheegaysa inaad madaxweyne u tahay inta aad maqnayd waxaa lagu dilay ganacsado reer Jubbaland ah oo dadkii adigu aad mas'uulka ka ahayd saas sheeganayso kamid ahaa baa lagu dilay Axmed oo waxaa lagu dilay askartaada kamid ahaa si qabiil bareer ah lagu dilay Axmed oo waxaa lagu dilay gabdho Soomaaliyeed oo walaalkood oo meyd hoosaalada isbitaalka saaran mudaaraad iyo madaxa dhishiga kala dhacday jariimooyinkaas oo dhan baad geysatay dulmigaas oo dhan baad geysatay marka aad soo istaagtay waxaa la rabay inaad tacsidirto anigu waxaan matalaa dhammaan shucuubta gobolada Jubbooyinka afayaan bay ii doorteen social media dadka reer Jubbaland jareer iyo jalaac baan matalaa ee xalaasha walaal Cabdiqaadir adoo raale dadka reer Jubbaland baan matalaa hawiyaan matalaa daarood baan matalaa dirban matalaa digli mirif baan matalaa jareer weyn baan matalaa baajuun baan matalaa awraman matalaa dadka deegaanka dhan ayaan anigu matalaa ma wax kale anigu nin afayeen oo dadka Soomaaliyeed ee Jubbaland degan ee raxweyn leh ee sharaaf leh ee cid walba lahan matala adigu haddaadan ogeyn titalkaas baa anigu leey doortay dekreetaana haystaa codkii shacbigaasaana ku hadlaya beelaha Soomaaliyeed marka Madoobe magaaladu soo galay fiiri dadkan inay cheap labor yihiin oo ay dad dulaysan yihiin oo ay dad xun yihiin oo ay dad dhintay yihiin waxaad ku garan kartaa dhumaal baa soo garab istaagay xageed ku aragtay fiiri qorqor fiiri lafta gareen fiiri dani fiiri major general sareeyo guuto dareyskii waagi shariifka soo bilaqays ila shariifkana dad ma yaqaan wuxuu isleeyahay qof kasto aad mareexaan hood aragto general buu ahaa iyo wasiir iyo ciidan buu ahaa ninkaan oo meeshan lagu qoodanayo oo cabdi qayb didwaaga booliiska ahaa taliyaha gurmadka degdega xarada mataqa school police iska joogo oo iska qaylo miskiin iska abuuro taliyaha ciidanka xooga warax mareexaan ay meesha joogo booskan daarood baa leh ninkaan baa la soo kaxay dhuumaal taliyaha ciidanka xooga dharkii sareeyo guuto dhan buu soo bilaqaystay 6 bilood ma hayn buu waxba maamuli kara nin wax yaqaanana ma ahayn nin wax maamuli karo ma ahayn sidii baa lagu soo cayrshay Kenya u soo galay masiibadii ogaantuu dalkan ka dhigay ilaa iyo hadda anigu waxaan ka rabaa aan ka codsanaya war dhuumaal gaarsiiyo ilaahay ka baqo darajada ciidanka nasiib ilaahay ka baqo iska siib dharkan waa sareeyo guuto dharkan ma geeyaan mas'uul in wax loogu geeyo marka dharkan ma geeyaan qof jaahil ah oo qandawalo ahaa
وقريها نسي جري إن لو قد بيستاجو درك المدحوينها قرن كان لو قد بيستاجر وصريب قلت إلهي كبق درك أنا نرد درك المجيان المسؤول بيها اللي جو إلهي كبق درك عندك دركان اسكدغو سيداada ugu shaqay oo kabaliyari ka noqon meesha anu dharkan una hayaa dharka xanuunkoodii hayaa sareeyo guutanimada aad soo xiratay ee aad la daba istaagaysa madoobe saal leedahay ba anigu xanuunkoodii hayaa ee wax kale ima hayo masqul dharkaasi ma geeyaan in lagu alaab lagu geeyo dharkaasi ma geeyaan hogaamiye jaahil oo qandawlaha guryaha dhisi jiray argagixisa in lagu daba istaago war orod fiiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka qofka daba taagan ee salaanta siinayo ee daba taagan darajadiisa fiiri marka $1 oo aad inta lagu siiyo ku qayisho aad meesha la fadhido inaad umad ku dulayso oo halkaas aad dharka adigu wax kale namaad geysan dharkaas maxkamad lagu saariyo dhumalo dharka iska dhig intaasan adigu kaaga tagay madoobe marka madoobe maadaama aanu ahay afayeenkii ama hogaamiyihii kacdoonka goboladaas looga xoreynayo Kenya iyo malcuumiinteedii waxaan rabaa inaan u sheego madoobe meesha aad ka tagtay maamul baad ka leedahay hoggaadaha lagu wareejiyaa leedahay waxbaad ka sheekeynaysaa war hoostaadii baa qurmoon dadkii baad cunaysaa oo raydayn maysid inta aad maqnayd waxaa lagu diray 3 qof oo midlamaanta oo gabaraha lagu diray kuwa kale isbitaalka yaalaan ku qormayaan oo ay daawo haysan oo aflambooyinka ka jirtay war waxa aad ka hadlayso iyo maamulka aad raadinayso iyo dawladda aad raadinayso iyo nidaamka aad raadinayso maxay tahay malaha adiga iyo kuwa iyo Kenya ayaa macnaheedu wax la wato oo Kenya aad raali gelinaysaa oo inaad Kismaayo tagtay oo ka hadashay oo aad Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Xasan Cali Khayre aad wada shaqeynayeen aad inta ayaguna la fikirtaad sheegaysaa waa yaxniyaha gabal haya xogaga xunka dadkan ka dhacday baad guriga ku dhisato Nairobi tagtay haddii aad Kenya ka hortimaad waxa lagu qabsanaya askartii KDFT ee dhulkan ku dhimatay baa lagu qabsanaya laakiin aniga midda aan caaw isla ilkaanbinaya waxay tahay midda aan la yaabanaha waxay tahay deegaankan dad ma lahan deegaanka ninkan gobolada Jubbooyinka dad ma lahan waayo hadday dad leeyihiin aqoonyahan leeyihiin waxgarad leeyihiin dad dhiidiye leeyihiin maanta waxa ma dhacin war ninba hadda koor waxa leeyahay loo falaar mid halka kaga jirto iyo mid fatada kaga jirto war midda dabada midda laga saaraabaa leeyahay markaas yiraan dabada iga jirtay ka saar bal afariiste war reer Jubbaland waxaa leen ka saaray falaartii dabada in kaga jirtay ee doolow ilaahay baa in ka saaray rabbaani xagga samaday ka timid gabru ah colka ugu daran ee idin haysta gabru ahaa iyo saray iyo taamana tigreegi meesha doolow fadhiyay iyo wiilka jaajuuska oo cabsamad ahaa ilaahay baa in ka kaxeeyay ilaahay baa in ka kaxeeyay taadiyadii iyo dhibaatadii idin haystay tigreegi ilaahay baa in ka kaxeeyay maanta marka meesha aad maanta maraysaan ma ahayn in halkaan taagnaataan maamulka gobolka ee ruuxiga ah hawshii loogu talagalay waa qabteen inta badan laakiin wax badan baa dhiman hawl badan baa dhiman dad yow kaca oo qurba joogtiina kaca oo qaran joogtiina kaca oo dalkiina difaacda qof aan dal lahayn xitaa ilaahay meel ku caabudaya malaha Kenya dalkiini baa loo soo dhiibay gacanta loo soo geliyay dad baa ku soo heshiiyay adinko oo nool oo guryihiina jooga leen ku dulgatay deegaankiini lagu dulgatay كديدية ورقرب جوجي سوي ماذا وقديا سميست رير جبلان ورد بالله الله يا ماي محاتري بالله الله يا تلو ذراد يشر وذراد سكوي ماذا ديدا وحا ماشا كالسعود بيلها قبل كقدر دقن ايه صوماليا دو وحان ليا هاي مدوبة أديبكي ماشا أريقا يقيلا إذن داقا يقولك إلا إذن سيي إيه قال مدوبة يقال عدام بيكي قبسان ويديبو أدونو سوك حينيا تستيكر بين أو حارانا ولو وريقيا diidna dhaha oo tashada oo dhaqaala midaysta awood ciidan midaysta tala midaysta saddexda midaysta gabdhuhu guntiga ha furan aqoonyahanku maskaxda ha furan
dhalinyaradu xoogga ha furaan dhalinyaradu xoogga ha furaan oo ha ku talagalo inuu dalkan asaga awowgii baa kaga tagay ee u xoreeyey inuu xorriyad ku noolaado ha ku talagalo laakiin whatsappka iyo youtubeka iyo facebook la fiiriyo macna ma keenayo ha loo diyaar garoobo difaacu nafsi dalka iyo degaanka looga difaacayo dowladda kenya iyo camiiliinta u shaqeeya dowladda kenya billahi calaykum taasaan leeyahay aniga marka waxaan hadalkayga kusoo hoorinaya axmed madoobe dowladda federaalka soomaaliya madaxweynaha maamulka jubbaland uma aqoonsan mana ahan beesha caalamkana uma aqoonsan cid u aqoonsatay ma jirto waa hogaamiyaha magaalada kismaayo afmadow inta lagaga imaanayo in dadkaasi degaankii odayaashoodii laysu keeno gobolka jubbada dhexe la xoreeyo dadkii laysu keeno maamul ummaddaa dhisato boobkii iyo dulmigii meesha ka dhacayna laga baxaa waayo caawa kismaayo cid isku dooran karto ilaahay uuntay ma jiraan waxaa ka dhacaya waad aragtaan beesha caalamka waan u gudbinaa dhacdo kastoo dhacdo iyadoo sawiraan u gudbinaa xalanaan u gudbinaa isaga beesha caalamka ku cataabo annagana waa u gudbinaa dowladoo la gaarin waxaan ugu beeshaasi marka qabiil soomaaliyeed iyo oo xildhibaan ku dooran karta ma lahan waa meel dhimatay dadka lagu baabi'iyo lagu xasuuqo gadaal ka raran dad arxalaawayaal ah oo gacan ku dhiglayaal ah oo dambiilayaal ah ayay joogaan wey qofkii maanta ku dhiiran kara meesha axmed madoobe bahalkaa uu fadhiya dadka lagu cunayo ee dad cunka uu fadhiyaan wax ku dooranaya dhahayo waxaan leeyahay waa qof naga il adag waa qof naga ayaan badan waa qof naga wanaagsan meel aan marka uu ray looga naxayn meel aan askari looga naxayn meel aan aqoon-yahan iyo ganacsada looga naxayn ciddii wax ku dooranaysa aadaysa ayday u taalla ciddan marka qoladan marka masaakiinta ah ee axmed falastiinta u bixiyey ee mareexaanka ah ee axmed falastiinta u bixiyey ee asaga hoos jooga ee maxaa la yidhi ku hayo ee asaga hoos fadhiya ee waxaan masquul biyogeeyaha dhuumaal iyo kan maskiinka ee $100 la siinay war mareexaan iyo dadkii sharafta lahaa ee degaankan deganaa ee dhulkan lahaa walaalow annaga masquul xil nooma noqonaysa axmedaan masquusha biyaha u geeyaa nogama filno $1,000 baa laysiiyaa nogama filno awood qaybsi baa loo baahan yahay reer gado iyo reer jubbaland beesha aad ka dhalateen aad magacooda iyo mansabkooda sheeganayso kuma filno madaxweyne ku-xigeenka koowaad oo $1,000 qaata kuma filno madaxweyne ku-xigeenka koowaad oo $1,000 qaata kuma filno cunto biyo dhadhamiyaha iyo masquul biyaha ugeeyaha iyo salaansaaraha $1,000 kuma filno nabadoon $200 la siiyo guri la dejiyo kuma filno qaaqlo $100 la siiyo meelaha tagtaagan kuma filno dadkani waxay u baahan yihiin waxay ayagu leeyihiin inay dhistaan ummadda dib u heshiisiin loo sameeyo laysu keeno awood qaybsi sax ah maamul sax ah ninna magan looga ahayn la dhistaa la rabaa ayagu marka waxay ku qanacsan yihiin maanta istaraad waxaa la dilay dhuumaalkaan la hadlaya waxaa la dilay markii gabadha la dilay wiilka u dambaysana la dilay dhuumaal kama hadalba ninkii hore shishigow ayaa dhuumaal wuxuu la soo xiriiray dadkii dhibka gaaray ee ninkii gabadha qabay iyo ciidan meel isku aruursaday oo gadooday ayuu la soo xiriiray wuxuu ku yidhi arda xeradiina taga meeshan adinku ciidanka amnigana ma lihidiin ciidanka daraawiishtana ma lihidiin asluubtana ma lihidiin booliskana ma lihidiin orda xeradiina taga orda hee xeradiina iska taga masaakiin looma ooyaana hatini xeradiina taga oo maxaad meesha la fadhidaa marka mid ka mid ah weydiiyo wuxuu yidhi war maxaad dhumaalow meesha la fadhidaa war meeshan waa iska lafaysanayaaye ha iska lafaysataa mareexaan ha iska lafaystaa lagu heshiiyey meeshaan al-shabaab baan kaga gabanaya waa iska lafaysanaya ilmahan ku korsan nin xaasi weyn baan ahaye ilmahan ku korsanaya haku mashquuline orda xeradiina taga dadka masaakiintaana ha sii laynin meeshana wax cadaaladaho ka jiro iyo wax ka jiraan ma jiraan meeshaan beesadaan axmedaa u weyn kun axmedaana u yar waxa maamulkana waxba kuma lihin ana meeshaan waa ka lafaystaay war adinku has halaagin iskaga taga wiilashii baa la hadlo waxaan ku roriyaaye masaasuu inku yidhi haa
ordaha meeshiini ku laabta anna waa iga diideen horta waxa meesha ka jiro waa waxa fiiri waxaa dego beelaha digir iyo marif jubbaland waxaa dego beelaha daarood oo mareexaan iyo absame iyo nimanka la yidhahdo harti iyo laylkase iyo awrtable aduu beelaha daarood ka dhig beelaha daarood baa dego beelaha daarood oo dhan baa dego beelaha dirir baa degto iyo beelaha hawiye beelaha hawiye nimankii hawiye ee wax magaradka ahaa ee talada dalka soo qabtay ee masaakiinta ahaa ee camiilada ahaa waa xaquuqdii beelweynta hawiye ay lahayd duudsiye waxay ku bedesheenna ma garanayn waa shariif iyo ninka la yidhahdo xasan ayaa beelweynta hawiye ee shiqaal leh ee gaaljecel leh ee cawramalo leh xaqii ay degaankaa ku lahaayeen duudsiye oo dhaafsiiyey waxaa ku soo haray beelweynta jareer axmed annaga wuxuu noo sheegayaa taliyaha waa ugu celinaynaa mar labaad ba ilan wax qof xanuunsan weeye ilan qof caqliyadla ma aha ilan qof garashalana ma ahe waxa aad leedahay dowladda maanta gadaha lagu wareejiyo taliyaha booliska maxamed naasir ina adeerka taliyaha nabad sugidda ina adeerka taliyaha daraawiishta ina adeerka taliyaha militariga ina adeerka taliyaha asluubta ina adeerka guddoomiyaha maxkamadda ina adeerka oo taliyahan asluubta maalinta u dambaysa nin leelkasa adilay gurigiisana ka dhacay oo xoog ku haysto taliyaha maxamed naasir ee booliiska wiil yar oo xuseen giif la yidhaahdo oo reer shamarko oo mareexaan ah oo ciyaalkii farataag la socday ah baa waxaa la yidhi waxaad u tahay taliya ku-xigeen kiina xerada waa laga soo cayriyey oo meelahaasuu qashimaysanayaa kismaayo dhexdeeda xerada mas-uulka maaha markii wiilka la dilay baa xerada laga soo cayriyey waa qashimaysanaya marka dowladda aad noo sheegayso axmed oo aad leedahay carraha lagu wareejiyey waa taase bal meel gey oo ummadda soomaaliyeed waxay qaadan karta maahee ummadda soomaaliyeed waxay qaadan karto u keen dhuxulaysto madoobe ummadda soomaaliyeed waxay qaadan karta ula imow oo la imow marka dadka waxaan leeyahay gobolka gada degan iyo qurba joogtooda iyo aqoon-yahankoodii dhibaata ayn ku dhacday ilaahay baa maaragta dadkiinii mataqaanaa masiibadaasi waqtiba iska imtixaan bay ahayd imtixaankii masiibada ayn ku dhacday saysan mar labaad in ku dhicin tala midaysan caqliyad midaysan garasho midaysan ayaa linka doonaya caqliyad midaysan tala midaysan garasho midaysan baa linka doonaya madoobe xilli dadkan loo gacmo qabanayay waa la soo maray xilli dadkan loo waxaynayay waa la soo maray madoobe waa in dalkan laga saaraa madoobe waa in dalkan laga saaraa madoobe waa dhigyacab aan naxariisan oo arxanlaawo ah isu guri aan ku xidhe baalkii isugaan ku xidhe marka waxaan leeyahay qof kasta oo degaankaasi ka soo jeeda oo soomaali ah waa in uu u diyaar garoobaa in dalkii la xoreeyo aqoon-yahanku maskaxdooda furaan dhalinyaradu xoogooda furaan odayaashu talada furaan dalkii waa la qabsaday dowlad kenya ah la yidhaahdaa qabsatay dalkii dowlad kenya la yidhahdaa qabsatay intaa ka assalaamu calaykum assalaamu calaykum assalaamu calaykum assalaamu calaykum qadkii waa inoo furan yahy qadkii waa inoo furan yahy marka madoobe qofka ku yidhaahdo waa lay doortay oo madoobe waa la magacaabay oo waa maamulku yidhaahdo waa qof ilaahayga abuurtay been u sheegay oo aan garanayn waxa uu madoobe yahay iyo waxa loo ogolaaday iyo wuxuu yahay ma in soo socdo balaayahay dhiigyacabka u imaan maayo dhiigyacabka u imaan maayo daalimku u imaan mayo ilaahay baan maaragtay ilaahay baan maaragtay ka magan galay inaan kaas soo aado dhigyacab madoobe u imaan mayo dadkaasi waxaan ilaahay uga baryaynaa in maslaxa wax khayr qaba wax ka wanaagsan iyo hoggaan ka wanaagsan ilaahay siiya qadka telefonka waa furan yahay
qadka taleefanka waa furan yahay soo dhawaada waa furan yahay qadka taleefanka gaarihi waan diyaar faraskaaga la qadka taleefanka waa inoo furan yahay dhammaan dhegaystayaasha iyo dadka raba inay ka qayb qaataan waad soo geli kartaan marka waxaan rabnaa marka ummadda soomaaliyeed marka ummadda soomaaliyeed maanta halkaa naga daawanayso inaad ogaataan madoobe wax lagula heshiiyey oo maamul ah oo hogaamiye ah oo in degaankaas iyo dalkaasi madaxweyne u yahay ma jiraan waxaadna ka garanaysaa heshiiskaasi qaabka loogu galay iyo qaabku ahaa ayadoo ra-iisul wacalaykum wassalaam farxiyo daahir soo dhawow farxiyo daahir halgamaa xildhibaanka dhaarta u dhiman tahay soo dhawow farxiyo soo dhawow waxaadna ka garan kartaa waxani sida loo kala degan yahay marka shacbiga gobolka gado deganne soomaalidu waxay tiraa ishiisa laga arkaa ushiisa lagu timaa waxa idin haysto oo xasuuqo in ku dhacayo isawac waa soo wici kartaa isawac darad waa caadi cabdiqaadir isawac waa caadi fikirku dee waa la kala fikir duwanaan karaa siyaasadda waa lagu kala mataqaanaa duwanaan karaa laakiin wixii la wada yahay lama maaragtay looma kala waa in wax la iswadaarsadaa dadka marka way hurdaan war reer gadow ma waxaad maanta ku qanacsan tihiin wixii shalay ka dhacay magaalada Kismaayo u dambeysay ee lagu dilay ganacsada shigshigow war ma waxaad ku qanacsan tihiin wixii lagu dilay gabadhii uu reyd ahayd ee lamaanayd war ma waxaad ku qanacsan tihiin wiilkii yaraa wixii lagu dilay war ma waxaad ku qanacsan tihiin jalmadan uu dhuumaal la wareegayaad ku qanacsan tihiin war ma marduufkan jaadka ina siiyad la siiyay miskiinka ee dhabarka ku fariisanayo ee aan tala iyo tusaale midna lahayn marna balaayada ka go'do marna la siiyo miyaad ku qanacsantiin war miidan dad ahayn maxay ahayd alaysa minkum rajulun rashidun war reer jubbaland miyaan rag inka dhalan war miyaan dad inka dhalan war miyaan dad qiimala inka dhalan oo wax diidi karo war maxay tahay awoodda wa tacadiyada iyo dulmiga iyo dhibaatada dhacaysa ee madoobe horgalka ka yahay duudsiga iyo shahaada suurnimada nimankan siyaasiyiinta xaraash qaran ee ilmo uhuuru ay wadaan oo maalba idin sheeganayo dhibaatada iyo waxa idin haysto meesha qurmoon ee bulaacadda ah ee ay addoonta ugaalideeda lagu cuno wax la daawan kara ma aha wax la fiirsan kara ma aha dadkuna xorriyaddu waxay ku gaaraan alxorriyadu waxay xorriyaddu ku timaadaa dhiigga geesiga xorriyaddu waxay ku timaadaa naf iyo nool in la bixiyo xorriyaddu waxay ku timaadaa gumaysi baa la galaysaan 8 sanana waad ku soo jirteen reer jubbaland gumaysi baad gasheen 8 sanana 10 sanana waad ku soo jirteen maanta saacaddu halkaasay leedahay amal gumaysi inaad u leexataan oo aad noqotaan county Mandera Kenya ka tirsan oo Kenyaan ama aad noqotaan waaba tihiin ama aad noqotaan dad Soomaaliyeed oo degaan Soomaaliyeed xor ah labadaas ay intaan aqooyahankiini hadduu xiirana noqday saraakiishiini dhuumaal noqday xildhibaankiini fartaag noqday madaxweynahiini ku-xigeenka koowaad oo noqday maxamuud sayid 20 kun inta la soo siiyo in cabdikaliile hor dadka masaakiinta ee hambada ah reer guriga uu sheegay xuseen cabdi xalane ee kenyaanku baabi'iyeen sii lay oo sii baabi'i tee reer ba-ow yaa kula habaatihiin war dadkan oday maskiin ahoo $300 la siiyo guri yar inta Kismaayo laga dejiyey halkaa fadhiyo ummadan masiirkeedii iyo dalkeedii ma siisan kartaa ma siisan karto ma ogolaan karto caqli ma ahan war taladan bixinayaa waxay tahay
ورتلدان بحنيا وحيتاي ورتلدان بحنيا وحيتاي والله وبالله وتالله قميسي والله إذين وضا أذنك أقريها أدقنتين يدلكي نبت جوجو ورصوع محان كل عيد عدا بالا إذن إبسدي والله يكدر القطي والله يكدر القطي والله يكدر القطي أذنكو تاجن أيها الله يكدر القطي أذنكو تاجن بالله يكدر القطي نينك اللي يراهدو عبد الرحمن يا عمر يا جاندي با إذن إبسدي مركو هوري شريف والله دي سي حراشتي دلالك ودن بينا على غير روها وين سيسو عندونتا بنان بحيدنا وارغنا كعدونك شعبك وانا رغنا دوركي سياسات دوركي قناعستدا ايام مغن ardal kan waxaan soo marnay maalmo adag tan ka adag baynu soo marnay maalmo tan ka adag baynu soo marnay maalmo aad iyo aad u kulul baynu soo marnay waynu ka gudubnay caqabadaas waa laga gudbay warbaxariyaha qaxootigaad galaysaano oo waxaad raalli ku tihiin oo aad adduunkiina iyo dalkiina dhaafsanaysaan dhowr wiil oo xildhibaano idin ah guryo ay Nairobi ka dhisteen ma waxaad dalkiina iyo deegaankiina ku bedelanaysaan dhowr nin oo ganacsato ah oo Nairobi guryo ka dhistay maxaa sharafkiina iyo karaamadiina ku bedelanaysaan niman madax dalkan ka soo ahaa oo dalka iyo dadkaba soo cunay oo dalkan cunay oo xiirana kamid yahay guryo Nairobi ka dhistay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرضيت بالكيان والمكيان هالي كتين السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة كرو هذا عدك كرو قاد لما بهنا جزراء سوارت هذا القصة يا مدوبي waxaan rabaa inaan in badan kula doodo hadalkaygu jiljileec kuma jireen in adiga kaa codoodag baanay ma garat marka inaan arrinkaa midoobe kaala doodaan rabaa haddii aad dooda ogoshahay haddii aad ogoshahay midoobe inaad keligaa iska caydana dooda kuu goonin laakiin waxaan rabaa inaan kula doodo waa ogolnahay okay gabar baa lagu soo gelinaya kula doodayso soco ku soco maya ciddaa doodta soo gela haddii rabtan adigaa doodayay waxaan rabaa inaan horta ku weydiiyo adigu idaacad baa furatay ummadana dhexdhexaad inaa hataa qurux badnayda ina sayid aadan iyo fartaag iyo nin baa ku jiro maadaama aad tahay gabar sargaalada in la dooda la rabaa qof baa idin siinaa labadiina okay hadal marka waxaa qabta sheega marka wiilow muud gal saxnuuni doodaasaa la rabaa maantana ka qayb gashay haye anu waa dhexdhexaad baan idin noqonayaa محمد يقول سؤالي dood kulul baa socoto nin baa ku jiro madoobo difaacayo ninku marka dhageyso wuxuu yahan weydiinaya war magacaaga igu bilow iyo meesha ka soo jeedin igu bilow magacaaga iyo meesha ka soo jeedin maxamed axmed baliyaal waxaan kasoo jeedaa Jubbaland khaasatan Kismaayo qabiil ahaan nin ma jirtay ka tahay jirtay Ismaan Maxamuud عثمان محمود baa ka tahay باكتا ما شاء الله نن waxaa tahay reer Jubbaland oo Ismaan Maxamuud ah oo ma jeerteen oo Ismaan Maxamuud ah tahay maxaad marka hadaladaydii iyo dhaliilaha aan soo jeedinayay maxaad marka adigu madoobo ku taageersan tahay macnaha aad meesha ka rabto falyatafadal soo dhawow أنا أقول مدوبة حنا فتاة سنة مدوبة وانين صوماليات ومدحضة على بورتي أو صومالية شوكتا كمل أما قرأت واحد سيقى قوني وأوليه كرو أما إثيوبيا كوالتا أما كينيا كوالتا وقوني كو أنا متشلو أوغانديس با صومالية شوكا برونديس با شوكا كياتي با شوكا إثيوبيا با شوكا دادكا ودا كان شوكا ويري كمدين كوا كسمائية آقيدة شوكا ما قرأت هورت إن مركا قاب قبيلة يسان أدو هذا الشو نينكل يا محمد أدو قاب قبيلة يسان أدو هذا الشو ترى أنتي من ريحان هاي دوانيل في أحمد ومدوبة ويهين وأنا إن السيد مدوبي الله جهرة يضدك الله بدك مريحان وأنا تشتان وتسيقوني مريحان وهذا شو وأهل اللي في عيني مقرط ثاني هذا الكتاب كابو بيجي سمركي أفكاري مقرط. أوكي مرة اللي بكتة تعديات يحسوق كسر على مقالة كسماي. أو مقالة كسماي محي يحسوق كسر هو حمر كسر صومالي ونبض يهات. ما يفيري
أنا حمر فيري كسمايو قف يلا ما كنت متى وكاساريا فيري وكاساريا دين لاواتي وكاساريا إلى ما عادي كرتد بدلان إلى ما عادي كرتد حمل كله وكوجو عليا وان كوجو عليا فيري وان كوجو عليا سؤال دقيس أنا واحد كهالليا إلا كويا برو إلا يمشي للراس كمبوني حقنا دي دعنا أنا ما تقاني واسكش شغالي ساي أنا وحن مامل كان إلا قبل لنا نجيبوين كليا صدق لنا كهالليا حمر كما هاللي فرماجة كما هاللي سياسة كما هاللي سؤال شعان كوي دي بس كجواب أنا حمر هاي لا عادل قفنا خبرين أحمد صوت تاجر أحمد تاجر صومتي ما يبقى هذا أحمد صوت أحمد لكن فكر سليم هنا كقول ضوء اسكك عليا ربا هنا ترى هذا حمر معاك كاجرو مع حمر كاجرو كم ساي طوالي ودنا دك لو دلا اوكي تعديدي مالو سدو arta dilkii loo geystay gabadhii uurka lahayd shigshigow yarkii gacmo dheer ahaa oo waliba adiga beesha aad ka soo jeeday ay dishay seed u aragtaa ma ku faraxsan tahay ma raalli baad ka tahay oo aniga beesha ka soo jeeday shigshigow ku dishay shigshigow ma shabaab beesheedu noqotay beesheedu ma shabaab bay noqotay shigshigow ma shabaab dishay شيكشيكا وانا كبح مرك نعلة الله عليك نعلة الله عليك صع نعلة الله عليك نعلة الله عليك نعلة الله كقول عليك كبح ماشى قرمون تاي وريسا وقبيله سنتاي ادبد وريسا سنكا لغا قبسدو in madal soo dhex jaajiba salaam alaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhawow maxamed aamin soo dhawow wax qurmoon baan soo dhaxgalay oo aan ragna ahayn rabbina aan aqoon baan soo dhaxgalay in umada waxa soo kala ay maqashaba doonayeen maxamed aaminow seed u aragtaa hadalkii ka soo yeeray dhuxulayste maanta ka soo yeeray hogaamiyaha nafla caariga ah ee xasuuqa shacbiga Soomaaliyeed ku hayo gobolada Jubbooyinka 10 sano نعم نكاس دحوليسته وانكي يومدي Soomaaliyeed kismaayo ku baabiyay maamul ma sheegan karo waa nin jaajuus oo Kenyaati ah nin deegaan ku dhashtay ma aha nin soo duuri waa oo deegaanka Kenya ku haysto ummadda Soomaaliyeed beelaha deegaanadaas degan ma matalo aniga waxaan ka soo jeedaa beesha Gaaljacel Salansoor Axmed Madow mi matalo ninkii dadkay nabadoonadii ogaatida magaalada Kismaayo ku diri waa nin matalo ma ahan ninka Cabdi Baalleyn waa nin oo macnaha iskaga shaqaysto aniga xildhibaanadii beesha noo matalay way maamulka saaladiisa dhahay oo meesha la tagay oo qabaa'ilada meesha ay tageen waa ku maqlayaa هلو وسام قيس لو قيس سيد بلاد deegaanka si kala badan loo qaybiyo wuu diiday ninka oo aftoobtay xoog ku haystay Kenya oo qabatay meesha nin lii jiray gabra iyo afay ayaan joogjoog ku dhisay ninkii waayad xashishi maxamuudna loo farlay loo gabra u taagay inuu maamulkaas oo qoonsado madaxweyne oo qoonsado Axmed Madow iyo ninkii madeerka Axmed Madow ahaayeen afay la dhahay baastoorka sheeganay xoog maamulkaas uu dhisay qabaa'ilada deegaanka muu dhamo qabaa'il deegaanna shaqo ma ku lahan maamulkaas waa maamul jaajuus ah oo Kenyaati ah oo deegaankaasna matalin oo dhulkaasna xoog ku haysta Kenya u haysto aniga hadaan beeraha deegaankaas u dhashtay maamulkaas mana matalo waa dawladda Soomaaliya waxa ku qasbay ninkii jaajuuska ah Xasan Cali Khayra ku qasbay in oo loo aqoonsado macnaha ku meel gaar loo dhigo oo loo aqoonsado madaxweynaha ku cadaadi maxaa ognahay ninkaas madoobe jaajuuska sidkii magaalada Kismaayo u dabeelulay حتى وديه واي تذكر الله نحريت كعنك حضرنا بشحته وديه واي وواحد أصلي كذب بيولاي وما لقى مركز حيل هل بولي إني رح حلال إما دش أوكي محمد أمين حلال إما نيكا جاجوس كذبتي سومال اسماعي كلها ما تينو ده معمول ملايا قبنا هيك اسماعي دارشة هذا حلبانة البال كحلبانة إذا له عد حوق سكواي استمره نيجي بالي جبوين كحلبانة ده قلبها ري جيسنا يكسر دورناي isdiidi kasta male adana gacanta wax kugu jiro malahan dhehayna Axmed Madow jaajuus aad ma tishid male qabaa'il ma tishid male meesha Kenya ku joogtaa Kenya ku haysata maanta Kenya dawladda Soomaaliya hadday wadanka ka saarto Axmed Madow waaba ma sii joogi kara Nairobi cusub ee gobolka Gado oo madaxda ka yahay
عثمان نور حاج معلم وتايرسنا تاعنا بيري جبوينكا ان مامور صح على ديسو ومدحوينها جبل كان نقض عثمان نور حاج معلم وتايرسنا هي beelaha deegaanka saami qaybsigooda xildhibaanadii iyo wasiirada ay qaybsadaan iyo saraakiisha iyo ciidan midaysan oo beelaha Jubbaland dhan laga keenay oo hal in la midaysiyo aan rabnaa laakiin ciidan hal jufe ah saraakiil hal jufe ah wasiir hal jufe ah cid waxay matalaan male waa ognahay Axmed Madow wax meesha ku hay waa saraakiish dhan waa laftiisa waa nimanka محمد أمين u dhano jidjiig soo duulay dhagax buur maxamedow أمين مغلسة maxamed ali waa ku maqlaa maxamed adiga hadda saxnuuni adaan ku siiyey seed u aragtaa Axmed Madoobe maanta wuxuu ku hadaaqayo uu leeyahay doorashadii waxaan ku heshiinay asagoo baal maray wixii lagu heshiiyay aan ka warqabin in loo magacaabay hogaamiyaha magaalada gudoomiyaha kumeel gaarka ee magaalada Kismaayo in lagu heshiiyay heshiisku ahaa oo u maray inuu heshiisku ahaa madaxweynaha maamulka Jubbaland bal aduu seed u aragtaa tacdiyadii xasuuqa dhuxulaysay iyo kooxdiisa canaasiirta ay ka wada magaalada Kismaayo ولا ما استطيع أن ما يمقليسا aad baa lagu maqlaa hadal ku horta waxaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله wiilka hadda ku jiro igu horeeyana aad buu u mahadsan yahay xoogaal weeye codkiisaana ka garanaya inuu Jubbooyinka yahay sababta luuqada ayaa abtiriska qofka sheegta ninkii ka horeeyana ma jeerteen ma ayna ogaadeen buu ahaa ma jeerteen buu ku maxaabsanaya sababta ogaadeen yuhuudda waxaan maqli jiray maalinta qiyaamaha geedaha ayaa sheega nimankii ogaadeen oo dhan aanan afka marinayn nimankii soo duulay oo tahriibka ahaa oo kalbisaydka gabre iyo ahaa huurkiyaata ayuu ka soo jeeday wiilkii ka horeeyay sababtu waxa weeye anoo isagoo reerkaas ka soo jeeda banaanka isma soo dhigi karo waa yuhuudi geeduhu sheegeen sababtu dulmi bay ku yimaadeen waddanka Soomaaliya kalbisaydnimay ku yimaadeen ummadii Soomaaliyeedna waa ogaatay geedkay galaanna waa laga bixinayaa Axmed Madoobe haddaan u gudbo dhibaato waxa ugu filan maanta qabiilkiisina inuu qariyo magaciisina magac kale ka dhigto wiilkan ka horeeyo horta dhibaato intaas ugu filan saasaan ilaahay uga rajaynaynaa inay sida taariikhdoodu ku gubato wayna ku gubato ummadda Soomaaliyeedna 100 sano soo socota way ka digtoon tahay oo nin ka yimid Shangosh iyo Tigtigiyo fiiq inuusan ka talinayn Jubbooyinka waa wax cad sida xadiiska ilaahay iyo quraanka u sheegay u cadeeyay ayay u cadda waxaan u gudbay Axmed Madoobe waa kuma Axmed Madoobe waa kalbisayd ay soo dirsatay yahadigtii waddanka laga burburiyo maanta laga qabsaday magaaladii ugu dambeysay ma garanaysaa waxa waaye marka ka bacdi markii ay nimankaas soo dirsadeen yahadigta raas gambooni waxa la yiraahdo waxay u taagnay difaaca tikreega u taagnaayeen ka bacdi markii tikreegii liicay waxay u xigteen huuru badhaadha huuru kiyaata u xigteen sababtu waxa la yasaar geed la'aan ma baxo nimankaasu markii isirkaaga iyo nasabkaagu ku abtirsado jaajuusnimo waxaad raadinaysaa qole aad kalbisayd u noqotid oo kugu shaqaysata nimankaanu shaqo la'aan meel ma dhici karaan mana seexan karaan horta waa sidii wax sharafa iyo wax karaaba oo Soomaaliya u hayaana ma jirto gabadhii uurka lahayd ama ma jeerteen hadila ama diiriya hadila Axmed Madoobe hadila Ree Cabdillah dilay shugshugow Ree Cabdillah dilay waxayna u soo adeegsadeen oo dhahan taleefanka nagula hadal meeshuu jooga aan ogaanay ninka la yiraahdo luga dheere oo aan sheekhaal u tirsanayn ee kalbisayd Madoobe noqday oo la tababaro macbiil laga dhigay wiilkii muxuu ahaa gacma dheere waxaa dilay Ree Cabdillah dilay gabadha uur kale iyaga dilay inta dhaawaca iyaga dilay intii ka horeyso kumaanku kor u dhaafay Ree Cabdillah dilay bacmadoow gabadhii loo galiyay madaxa oo wiil ugu horeysay Ree Cabdillah dilay anagu haddaan beesha sada idagayso haddaan beesha sadanahay anagu dadka dilay waa naqaanaa waana noo tirsan yihiin aanado iyaduna waa qaan mareexaano waa qaaxa kugu maqan oo adiga qabiilkaaga waad u qoolmi doontaan loogama harayo qabiil baan u xaydxaydanaya hadda right now sawta xashan sheekh baa na baray sheekh shariif oo madaxweynaha na baray ra'iisul wasaaraha iyaga maanta qabiil u taagan yaa noo diiday inaan qabiil noqono oo isdifaacno horta yaa noo diiday qofkii irdigaaga iyo awlaadaada iyo dumarkaaga kuugu yimaada allahu akbar baa la isaga celinaya
kalbisaydka ka yimid Shangoosh iyo Fiiqra abaalkoodii waa dhow yahay hareeraha magaalada aan degannahay wallaahi baan hal ka baxayn halkii hadda Fiiqo doon ma ahane saxnuuni billahi calaykum idaacadda difaac marka ka hadlayso dhaarta jooji wixii kuu qarsoon qaab diblomaasiyadda u hadal ma maqlaysaa dhaarta jooji dhaarta iyo xanaaqa maya xanaaqa fiiri maya anshaxa idaacadda ilaali baan ku yiri dhaarta jooji wixii eedan iyo dhaliil iyo qaabka ay rabto ilaali maxamed amiin gudoomiyaha dib u xoreynta gobolada jubbooyinka ee beesha gaaljecel waxaad ii sheegtay hadda xamar inaad ku sugan tahay halow waa ku maqlaya maxamed amiin maxamed cali muqdisho waxaan soo gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijyada lagu taageeray maanta waa ka qayb galay si nabad ay noogu soo dhammaatay marka insha allah ilaahay hadduu yidhaah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maanta kal iyo laabaan usoo taageernay marka insha allah haddaan nahay dadkii soomaaliyeed oo xalaash ahay madaxweynaha jamhuuriyadda oo soo bannaan baxeen inay kal iyo laab taageersiin inay caddeeyeen nimankaa jawaasiista ilmihii Uhuru Kenyatta ilmihii gabra ahay waxay waddankaa ka qaadaynaysan jirin waddankaa hore u maray ninka maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyana waa nin ummadii soomaaliyeed laabahooda macnaha degay oo wax kasta u qabtay oo dadkii maxaabiista adduunyada ku xirnaa soo jeeyay oo hawadii soomaaliya soo celi oo gabra laab maxamed amiin billahi calayk maxamed amiin dhegayso barnaamij kalaan ka dhigan doonaa waxaynu ka hadlaynaa tacadiyadii iyo dhibaatadii uu dhuxulaysta ka geystay dhuxulaysta horta yaa dhalay dowladda soomaaliya ma la gaarin maanta maahan barnaamijka maanta dhuxulaysta ciddi dhashay qaabkuu ku yimid su-aasha marka aan ku weydiinaya waxay tahay su-aasha aan ku weydiinaya waxay tahay maamulkan ay sheegaan oo dhahaan waa Jubbaland oo sticker bullay waa la xukumo horta yaa dhistay horta yaa waxaan keenay ummadda Soomaaliya waxaad ka ogtahay maadaama aad tahay dadkii xogogaalka maxamed aamiinow la wadaag waxaan yaa dhistay maxamedow magaalada Kismaayo markii nimankii shabaab magaalada laga saaray magaalada waxaa soo galay nimankii Kenyatta oo iyo nimankan oo dhuxulaysta waa ilmihii Uhuru Kenyatta waxaa magaalada Kismaayo loo keenay in dhulkan badda Soomaaliya magaalada dekedda ku taalo ee dhaqaalaha ay ka gurtaan ee dhulka jubbooyinka صح halkii magaalada Kismaayo ka bilaado qabaa'ilada deegaanka ninkasta madaxweyne uu sheegtay Cabdi Baali madaxweyne uu sheegtay Istiin Xasan Baas madaxweyne uu sheegtay Baraaba Shirka madaxweyne uu sheegtay Xasan Buraale madaxweyne uu sheegtay ninkasta xaafadiisa oo xirtay marka ninka dhuxulaysta iyo Kenya soo dirsatay waa wuxuu tumbuways ninkan ay soo saarteen wateen Kenyaatiga weeraray ku soo qaadeen dadkii xaafadaya oo deganaa beelihii madaxweynaha sheegtay kabacdina dagaal culus meesha ka bilaawday dagaalkii waxaa isku faa'iistay dadkii Cabdi Baali Istiin Xasan Baase aadan Shirab Barihiiraale Xasan Buraale oo iskaashteen ninkii Axmed Madow cagta Limbari Kenya loo isgili Kenya tabaabada soo kacsataa dadkii xasuuqday marka saasa magaalada Kismaayo nimankii Kenyatta madaxweynaha beeri u qabteen aadan Shirab goobooyin uu soo aaday magaalada Muqdisho markaas gabra markii dabafar uu yeeray raggan oo dhahay maamulka waa in raacdiin hataa kala cataanina marna waa loo hanjabay maamul xalaal meesha malaydiisin ka ninkii ambassador sheeganaya Cabdi Afay ninkaas ku heebta ah Axmed Madow sida maamul oo fadhiid oo macnaha hal juf meesha lagu dhisay maamulkaasna qabaa'il wax ku darsaday sidii Hiirshabeelle Galmudug iyo Koonfur Galbeed iyo ma ahayn iyo Puntland oo kale ma ahayn waa nin kaligii taliye oo Axmed Madow dad oo jigjigi iyo qalbi dahar iyo fiiq laga keenaa meesha lagu soo daadguray lagu beero oo maamulkaas qabaa'ilada deegaanka ma u dhamo maamulkaasna ma aqoonsinin haddaana beelihii deegaanka anu waxaa sugaynaa insha Allah haddaanahay beelihii deegaanka maamul sax ah dhulkan laga dhiso adninka hadda fadhiidka Jubbaland Kismaayo kali ximaan inta xuduudka shabeellada hoose kuwiya baroowa dhanka kale ilaa waa Raad Kamboni dhulkaas gacanta ku haya Axmed Madow jaajuuska Kismaayo Kenyatta ku wardiinoya dhulkaas qabaa'ilada degan diyaar u yihiin maamulka cusub ee Jubbaland oo madaxweynaha ka yahay Ismaan Nuur Xaaji Macallimo inaan soo dhaweyno aan ku soo dhaweyno deegaanada jubbooyinka deegaanada Cabdalla Biroole Uula Xaaji Canjeel la helay
beerxaani gudhaa istanbul janaay cabdalle samooje buur gaabe kamsuuma kaanjaroon buula guduud dhulkaas dhan dhulkii oo beelaha deegaanka lahay inuu kusoo dhaweyno madaxweynaha jubbaland haqa cismaan nuur xaaji macallim oo diyaar u nahay ninka axmed madow mana matala waa nin qabayliste ah oo jaajuus maxaa la yaabana waa iga go-ay kusoo noqda maxamed aamiin oo kusoo noqda maxamed aamiin oo kusoo noqda maxamed aamiin oo kusoo noqda aad iyo aad saxnuuni kusoo noqda aad baan idin salaamaya ummadda soomaaliyeeday waxaa la marayo marka iyo hadalka meesha la marayo war maxaad naga rabtaa assalaamu calaykum wacalaykum salaam magaca yaalkaad naga soo wacayso jarwal baa kaa soo wacaya magacay waa maxamed war maxamedow seed u aragtaa hantaacada iyo dhibaatadan dhuxulaysta ummaddii soomaaliyeed ku hayo iyo adeegayaasha kenyaanka ah ee dalkii soomaaliyeed kenya ka dhigaan dooniyo in adeer aad iyo aad baa kuu salaamaya maxamedow ninkan horta kenya u shaqeeyaa soomaalida horta maaha midoobe meeshana jubbalandna waxa weeye uma taliyo meeluu xukumana male waxa weeye waa kenyaan weeye hadduu run sheegayo oo leeyahay maanta wuxuu leeyahay garbahaar iyo gadaa xukumaa buu ku leeyahay intuu soo fadhiistay muxuu uga hadli waayey dadkii shacabka ee kenya ku leynayeen halkaas maalin kasta afduubanayeen muxuu hadduu uu meesha uu leeyahay waa xukumo aniga waxaa isku kay qaban weyday nin kula hayo meeshanaan cidna ma xukumo taas wuxuu caddaynaysaa inaan waxna xukumin hadduu wax xukumo dadka shacabka la leynayo muxuu uga hadli waayey intuu maanta ka hadlaayo waxa weeye dhul ciidamadii soomaaliya la geeyey oo ciidamada soomaaliya ay shacabkii ku seexdeen macallimow waanu hambalyanayo aniga nin warsigelaya baan ahay oo waxa weeye gobolkaas sanaa kasoo jeeda kuwana ninkan horta axmed madow horta waa nin kenyaan soomaaliya oo maha ma garan sax kenya u shaqeeyaa waxa weeye kuwan hadda maaragtay qaraxa soo abaabulay ee mucaaradkaana dee way fashilmeen ma garatay sax waxa ugu dooroonaa oo haddana wuxuu noqday oo isku kaajay xasan cali khayre oo aanu islahayn waxa weeye dad buu noqonayaa maanta inuu carruur yar yara oo waxa weeye social media ah uu lacagtii cashuurta waxa weeye uu dadka wuxuu ugu qaban lahaa intuu dhacay oo waxa weeye lacagtii musuq maasuqay oo dhacay inuu carruur yar yara oo aan waxba waxa weeye samayn karin inuu lacag siiyo oo mushaar kusoo bixiyo wuxuu kala garan waayey inay waxa weeye xasan cali khayre in xildhibaanna wax dooranayaan iyo in shacab wax dooranayaan buu kala garan waayey waa ninka bal carruur halow ha halow mise shacab wax dooranaya carruur yar yara oo waxa weeye halka la marahabaabiyey oo kuwa weliba reerkay ku abtirsanaya inta ay ku jiraan oo lacag uu soo siiyey oo aanu ognahay oo annaga aanna matelin oo waxa weeye xasan cali khayre u shaqeeyo oo fadal lacag ku shubaa war annaga nama matelaan haddaan warsigelinahay weliba cid baa iskugu xinaa ilmaa reero nama matelaan lacag buu soo siiyey ma garatay waa ceeb yaana loo qaban ma garatay waa runta saldanadii guunka ahayd ee warsangelay waad maqlaysaan ummadda soomaaliyeeday waxay dhaheen heblaayo coley nama matasho yaa noola qaban oo ma mid kale kusoo biiray aan coley yaana loo qaban shiilo culayo afarta xabo labada xabo oo halka xabo u wato yaana loo qaban waxa weeye lacag baa la soo siiyey awal baa waxa weeye dowladana shacabka maxamed cabdullaahi farmaajo shacabay soomaalida wax ku maamaadaa dabeer ceel baa loo istaagaa nimankan waxa weeye dabeer iska soo arooray weeye horta ma garata nimanka shiray waa dabeer soo arooray dabeerna waxa weeye ceel baa loo istaagaa ma garata aad iyo aad waxay qaadi karaan mare dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo guulayso naadir guulayso drop the down السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقرات كي بريستول يورم قرات بريستول soo dhawow maanta axmed madoobe oo wuxuu ka warqabay wax kala jirin oo dhakhtar ka soo baxay waa soo baahan baraarwey wuxuu soo dhex istaagay magaalo dad muslimiina lagu laayay oo meydkii iyo baroortii iyo dhiiggii muslimiinta yaallo waxaan loo dirsan buuna ka hadlay inuu ka hadlay ahay tacadiyadii iyo xasuuqii uu meesha ka geystay kamuusan hadal doorasho
hawo lagu kala goostay oo lagu kala baxay ayuu ku wareegtay arrinkaasi sidoo aragtaa gudoomiye wallahi dadka Soomaalida oo dhan waxaan waa la yaaban yihiin laakiin waxa la yiri ontaan soo cunayo buu waxaan ka gartaa buu soo sidideeda Axmed Madoobe lagama filan inta ka badan ma garan صح horaa loo yaqaanay ninkan waa ninkii dadka laayay meesha xoog ku haystay doorashooyinkii hore oo meesha ku yimid watu wawili watatu vijana tu Ahmed Madoobe wakati hiyo lugha unayotaka kulazimisha kuwa lugha ya Shen haina mashiko wala haina mwaka ule walitumia maneno haya yanapotea wanatumia maneno haya wanaacha kwa nini tufikirie kwamba Shen ni tishio ila hali nchi ya Kenya na makabila za Kikwetu pia ni tishio kore marka ninka waa laga filayay ninka sharciga ma yaqaan constitution ma yaqaan qabyaaladii iyo wuxuu ka dhashay ninkani fawdadii wadanka ka dhalatay garoowe iyo lagu sameeyay ku abuurmay waxa weeye hal xaaraan nirig xalaala ma dhasho shalay bay ahayd markii xamar la isugu tagay shantan in loo yeeray doorashada nidaamkii loo qaban lahaa lagu heshiiyey hadda isaga laga maqlay oo ka baxay cid kale lagama maqal ma garad waxay muujinaysaa dadnimo xumada liidnimada karti darrada iyo aaya xumada oo ninkaasi Soomaali la damacsanaa lahaa haduu awood heli lahaa ninkaas waxa uu yahay isaga sheegay dadkuna waa yaqaan ma garad ma sha Allah sax codka uu gada ka hadlaya uu leeyahay gada ma haysto ninka qabri dahar ka yimid gedo wuxuu ku leeyahay farmaajo waa mareexaan oo ma arki karo wuxuuna ku leeyahay gadaha la ii dhiibo waxaan aqli gal ma binaadmiga qabyaalada waxa la baxuma u hiilba la walaalka haduu gardaran yahay hadii laga dana u hiil waxa weeye dadkii uu la heshin waay mareexaan buu la heshin waay ogaadeen buu la heshin waay raxan weyn buu la heshin waay cid uu la heshinayo oo joogta gobolka ma jirto isaga iyo afar ilmaadeeradiisa oo jeel ogaadeen ka shaqayn jiray oo la sheegay inay gabdhaha kursan jireen oo la hayo gabdhihii Facebook ku duuban yihiin yaa Kismaayo jooga ma garad haye ku soco marka ninkan rajadiisu waa sida waxaan rajaynayaa hadii laha idmo doorashada markay dhacdo isaga baad ka baabaayo ciidamo Soomaali in loo keeno laga qaadan maahan rajo kale mala ninkan marka waxa ninkan laga sugayo male ninkan waxa leedahay wuxuu ku abuurmay dhaqan xumadii okay maanta marka waxaan qashiq buu ka abuurmay waxa weeye waa kaneeco iyo bacteria iyo qabiil iyo maxkamadu ka soo dhaxbaxay qofkan ma garad qof fadhiya ma aha marka waxani xilligii fawdooyin ku abuurmay meel cidla buu waxan ka helay ka bacdina qabyaaladii wadanka lagu maamulayay garoowe laga waday yaa lagu keenay meesha ma garatay oo leeyahay reer banu islaam ma garad la hawla wala quwwata illa billah marka waxaanu sidaas ku abuurmay waa wax qurb xaaraana way in xalaala hal dhibic xalaala kuma jirto meesha uu joogo iyo wax lagu sameeyo ma garad oo meesha magaalada markuu soo galay xitaa man naxariis ma laha miyaad xitaa dadkii Soomaaliyeed ee abraada ahaa ee gabadha uureyda ku jirtay ee lagu xasuuqa xitaa kama hambaliyeen kama tacsiyeen oo ma dhihin inta dhimata Allah u naxariisto saddex qof baa inta maqnaa oo meelaha wareegsanay lagu diray xitaa kama hadan ninkan dad badan oo qiimo badan baa ku dhintay gabadhaas ku dhimatay dad badan oo Soomaaliya ku dhintay waxyaabaha dhibaatada Soomaalidu ka haysato oo ah inay aaminaan oo qof u maleeyaan qof bini aadna cadow bay Soomaalidu aamintaa waxa la ninka inta loo yimid baa hotel la galay waxa weeye ninkan in la aamina ma ahayn in laga cararay ahayd in dadka loo sheegay ahayd ninkan wuxuu ahaa khatartiina waxa weeye ilaa 50 qof baa ku maqan maanta ma garad ma 678 saddexdii markii lagu daro 681 qof oo Soomaali ah oo dayra ka halqaadaha ninka ku maqan intuu magaalada yimid adigu ninka Catholic waa disaster ma garatay waxa weeye meel aan sharci ka jirin oo niman qaaqaawan oo qoryo wato oo jiilogaadeen laga keenay baa meesha taagtaagan cidna kuma nool ma garat shacbiga maxaad ugu baaqaysaa garaad maadaama aad tahay darwiish ilaahay maanta xaqqa ka hadlayo oo xaqqa ka adimaya aad tahay darwiish